shirka wadatashiga golaha iskaashiga dowlad goboleedyada oo uu shir gudoominayay madaxweynaha Puntland Cabduuli Maxamed Cali Gaas ayaa waxaa ka qayb galay madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe, madaxweynaha Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan iyo madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf. sidoo kale waxaa ka qayb galay wufuud ka socotay golayaasha dowlad goboleedyada iyo marti sharaf kale. madaxweynaha Puntland Cabduuli Maxamed Cali Gaas oo shirka furay ayaa sheegay in shirka ay uga hadli doonaan amniga, dastuurka, doorashooyinka iyo qaybsiga dhaqaalaha. shirka maanta isugu nimid dabcan ka koobnaan doona ajandayaal tiro badan oo qaarkoodna ay ahaayeen kuwii caadiga ahaa oo aan isugu imaan jirnay oo ay ugu horeyso ajandaha security-ga ama nabadgelyada ee Soomaaliya. dabcan Soomaaliya wali waa ay shidaysan tahay waxyaabo badan oo dalku waxaan rajeynayaa inuu maalin ka dambeysa kasoo wanaagsanaado, dowladnimada ay gaamurto, nabadgelyadiisuna ay hirgasho. laakiin wali xaaladda Soomaaliya xagga nabadgelyadu ma dhowaa, waxayna u baahan tahay runtii fikirka hadda jira iyo caqliyadda hadda jirta ee lagu maareynaya nabadgelyada in wax laga bedelo. suurtagal maaha maanta Soomaaliya in la yiraahdo waxaa jirta 26,000 oo ciidan ah oo la yiraahdo SNA iyo intoo kale ama ka badan oo AMISOM ah, wax ka yar 7,000 ama 6,000 oo weelal aan isleenahay waa laga tiro badan yahay, waa laga taageero badan yahay, waa laga shacbiyad badan yahay oo raag taag ah oo waxay haystaan aysan jirin inay weli shido iyo dib dadka ka wadaan in badan oo ka midana ayuu gacanta ku hayaan. madaxweynayaasha Galmudug, Koonfur Galbeed iyo Jubbaland ayaa ku eedeeyay madaxda dowladda federaalka inay faragelin ku hayso dowlad goboleedyada isla markaana ay ka leexatay tubtii loo doortay. dowladaha Soomaalidu markii hadda dowladda Cabdullaahi Yuusuf qoladii muqaawamada Jabuuti loo xoobsiimanayay waxaa maalintii dambe rifid baa jirta hoos wax laga guri jiray. malaha dowladdu waxba hoos laga guray, qolada shacabka laftooda heshiis baa ka soo socdo, Eritrea iyo cid keeni doonta waxbaa socda, marka dagaalkaa la diidan yahay baan isleeyahay. amaan xilli kale guura ku jira annagu aan degdegaynaa baan isleeyahay. mararka qaarkood markaan fiiriyo qaabka hadda ay u socoto xaaladda nabadgelyada waddanka nooca ay u jirto, la dagaalamaanta tiro iyo tayo iyo nooca la yahay Professor Gaas baa sheegay oo maanta shabaab waxay yihiin iyo ciidamada kasoo horjeeda la dagaalamayay waa shay cad oo qof waliba uu arko maanta sida ay tahay. laakiin ma jirtaa in lala dagaalamayo? waa maya. runtii dhibaatooyinka ka jira aniga aada iyo aad aan u dhibsanaynaa. galmudug in la dhibaateeyo sax maaha. galmudug maanta waxay mudan tahay sidii lagu dhisayna waa loogyahay. markii la dhisayay isjiid iyo dhibaatooyinkii ka dhacay wixii ka dhexeeyey Puntland iyo Galmudug maalintaida ka dhexeeyey ahlu sunna iyo Galmudug wixii maalintaas ka dhexeeyey. haddii intaasoo dhan maanta inta la dhameeyey in dhibaato kale ugu abuuro dhexdooda waa nasiib darro. waxaan ugu baaqaynaa arrintaeda in laga waantoobo Soomaaliya si ay u horumarto. runtiina inay Galmudug nabad noqoto, Soomaaliya oo nabad noqotay barkeeda waa runtii. haddii Galmudug ay nabad noqoto, Soomaaliya nabad ay noqonaysa. marka in Galmudug oo federalism ogol oo is hogaaminayso oo ahlu sunnada lagu wadato runtii waxaa laga wixii in dhibaataa in lagu abuuro aad bay dhibaato u tahay. waxaan aada iyo aada usoo dhaweynayaa oo aan jeclaan lahaa in golaha iskaashiga uu samayso ciidamo u gaara uu samayso. dalkii hala daba qabto, war Soomaali hala daba qabto, waa wareegay bay joogtaa maanta. war wallaahi meel bay ku dhacday, weligeed kuma dhicin maalka warkaa. laakiin dad xorood oo la samaa u jeeda, laakiin waxa xagasha oo jirac kunaya oo dad qoxala qof galana ama weliga maaha balaayaa la heshay, gabyabataa la heshay. shirkan ayaa waxaa ka maqnaa madaxweynaha Hirshabelle oo isagu ka baxay golaha iskaashiga dowlad goboleedyada.